adiga maxaa lagugu soo xiray meeqa sana lagugu xukumay aniga mar waxaa go'aansaday inaan bangi dhaco kadibna way qabteen waxaan lagu xukumay 10 sano xabsiya 10 sano dhamaa haa laakiin adiga igama sheegin imis sana halkan ku xirneedeen أبو عبد الحليم إمس سنة أنت كجرنا يعني haddii aan qiyaaso 13 sano 14 15 sano umalena maxaa waa 15 sano aad sheegayso waxaan ku jiray 25 sano ilaa 2 bilood dheeriya adigu waxa ka soo bilowdaa dawladda siyaad bari ilaa hadda kabtan maajid iyo xasan daahir iyo abu cabdulxaliim yalla istaaga dhammaantiin waxaad tihiin caafis maxaa waay cafis hadda masaan nagula cafiyo waana العافية guuladow aniga kabtan maajid waxaa qaadanaynaa taxi man raacay abu wada xaliimow waa maxay taxi aad sheegayso aniga wiilkay ay soo socdo oo qaadi rabo marka aanay geenaa meesha ratiin yaa qayo adiga waxa u socota xamar anina hargeyso ninkaana puntland marka misraaci kan isku jid manihin yalla guuladow ilaahay tala saaro waqti dhow waa midoobi doonaa ilaahay hana xifdiyo bye maca salaama wiilkii aan dhalay هلا aabahayga aan jeclaay soo dhowow kaale bal hab isi maya wax yar sug aad duubtay diyaar ma tahay le taageerayaasheeda aan jeclaay oo youtube-ka ku xirnayo aan maanta aabahay waxaa laga soo daayay xabsiga 25 sano ayuu ku jiro xabsi waxaa jeclaysan inuu aabahay idin salaamo inta idin salaami kor waa laazim inaan muujiyo aadaab oo madaxiisa shumiya yaa abil xabiib taageeray salaam bal aab maxaa kugu dhacay salaam ma salaantay bis halaas arab inaan idinla wadaago aabahas marteen soo soco may boorsada soo qaado kuma qaadaye taageerayaasheeda aan jeclaay oo youtube-ka ku xirnayo aan maanta aabahay waxaa laga soo daayay xabsiga 25 sano ayuu ku jiro xabsi waxaa jeclaysan inuu aabahay idin aabo si fiican u jilahayno mid kale mar kale ku celina okay yalla odaygan aabahay hadda xabsi ka soo baxay 25 sano ayuu xabsi ku jira cafis loo fidiyay aab madaxa ii dhib ashumiye xabiibi salaam bal taageerayga muuqaalkana laag saara halaas arab inaan idin sheego odaygan aabahay hadda xabsi ka soo baxay 25 sano ayuu xabsi ku jira cafis loo fidiyay aab madaxa ii dhib ashumiye aab waa markii u dambeysay ku celin kalkan filtera kugu duuba wajiga uu daalan walle yalla aabahay hadartana xabsiga laga soo daayay 25 sano ayuu ku jiray cafis maanta loo fidiyay aab madaxa ii dhib ashumiye حبيبي الوالي سلام بالتاجرية يلا مقالك لاك ساري هاي لوبينا أبي هدرت أنا حبسي لك سوداي لباتي سنة يوكو جري مقالك أنا خطر أسف عنا أدوبي ويلك وحي أدرسا أبو حقولي استري وحل الله يعني تذكرنا كداونا أدونك أنا لقى أركع سبرايز اوغ انت هاوس سودو اوغ الرجولده ku soo dhaw guriga wiilkaaga aad u qurxanta الرجولده adeerkay kan waa adeerkayga maanta ayuu xabsiga ka soo baxay wuxuu ku jiro 25 sano marka maanta waxa sameeyay kaliis liab adeer maxaa ku dhacay hore soo guriga mininka waay arduqa اوغ wala soo daay maanta a'uudu billahi min shaytaani rajiim kan adeerkay waa wuxuu leeyahay saxadu waxaad hay aabe ka waran surprise kan aan ku sameeyay maanta min subax ilaa hadda waxa afuufeen buufinka bal fiirihe kor fiiri wiilkayga meesha maxaa ka dhacayo kuwaana inoo haayeen kuwaana waa asxaabteeda oo jaamacad ila dhigato kuwa saaxiibada haa maxaa tani waa Samaara tanina waa Xamdi tani waa Titi do you love me waa ayadu bi ismarin bis ciyaarkayga waxay sheegtiin muuqaalada dhamaantiin iga dubteen historiga ma wada dhigteen dhamaantiin caama wadatiin ها مرة دقني هيستوريga dhaxta caanad hadda adeer marra dhigaani kuna daawatay aaba fiir meeshan marka suurka dhig gabdhaha ku soo dalbado waxay rabaa inaa aroosid yani oo ku kala kacshaan ma fahmino fiir warantii ilaahay hana xifdiyo caruurteeda ima qal wax yar waxaa idin sheegaa aniga waa daalanahay marka waxaan rabaa inaan nasto
aabay sariir oo ku jirto 25 sano ugu dambeysay marka wuxuu rabaa inuu nasto marka waa idin soo duubi doona insha Allah asoo dhahay insha Allah hadda waxaan u dhamaantay xalfadeena u sameynayna adeerkan oo xirnaa 25 sano si fiican u qosla qurux naga horreeyay duqa uga shaxadnay nacla la firwintiin naga horreeyay duqa uga shaxaday ma sha Allah duqa awgeegiyo kala kaamirada ku jeeday soo dhaw muku arkoy beestado kan waa duqa awgeegiyo la sidaa xabsiga kadib 25 sano intuu xabsi socon marka kadib wiilkii wax ma ku diigaa haw way diirtaa adiga taa istriga ma haw maxay diidana he shume inuu kala wadaano wiilku raala sakaarawe kala cimra fargaab aan arkay waxa duubtay بس إيجوجي أنت ربي ماشان واي gurigaadii miya ها وقرقي إمسا واي لعقت هذا hal ii bar إن شاء الله قبصو waad mahadsan tahay النار سودايتين وتراعاه صار وديت له دادة اللي بدو لباتن إيشان سنة أيو دمبيسي waxaa u maleynaa maanta gurigay inaa ag maro mininkeyga meelahan leek ag dhawaay haddaan qaldayninba sugba kuwa ma weydiiyaa talow kuwan ayagaa yaaba confirmation fadhiyo wallah arfaad inaa ag mara la ii dhaantabo ani lee raadsado inta waa umalaa luuqan waaye midig miyaa mise bidix talow iska soco laakiin truus le waa أبو عبد الله مجوجا أبو عبد الله جاركي درسكي يعني درس أهجني أنا أسي عبد الله كون هي أبو عبد الله متقند أنا أسي درس أهجرني يعني قولي أنا أسكله من كان أساس كله वेट करो यार सुनने ले अरे ना عبد الله क्या अब्दुल्ला इकबाल अमजद असलम सूरज स्लीप करो ما سند अंदर जाओ ما ما سنتين खाना شكرا أنك عرر من كيلي مر لا أقله अंदर जाओ सारे का अमजद को रे हैं गलबा अब्दुल्ला हट साले अंदर जाओ ना الله الأخرت بين الله ويلكيجا waxaan arkay riimiya mise indhahayga waaye alla wiilkayga jeclaa laatiisa indhaha kuma saaray ma nooleen soo adiga ma fiicin alxamdulilah waa hadda adoo fiican ii maantay wiilkayga si xabsi ugu soo baxday ma lagu cafiye waa dhowahay maanta la soo daayay wiilkayga kusoo dhawaa gurigaaga fadhiiso wiilkayga ay jeclaayo inta xabsiga kasoo bixin maxaa ii soo wici weyse waxaan kugu soo dooni lahaa gaari si kaysa la soo daayay ma rabo inaan ku dhibin saas darteed soo baxay marka waxaan soo raacay taxi ogow haddii mar kale lagu xiro anaa kusoo doonaa ila socodsiiye
هيا هيا إن شاء الله. wiilkayga mashruuca ku wada maadaama xabsi ka soo baxdo inaa xaas ku raadiyaa oo ku guriyaa waa laasin inaa gabar tiktok kaaga raadiyo maanta lee xabsi ka soo bax hore ma ka gurtaa hooy sabra loo baahan yahay wax yar lee sabr alla waxaan hadda soo xasuusta hadda kor soo gabar ima doonin oo la dhaho ma xasuusta magaceedu wuxuu ahay Maryam bal xalkeeda iga waran Maryam alla Maryam mar hore xarootay waxay dhashay caruur badan waxay barteen haddana way shaqeeyaan taasna waxa u sii dheer ayay noqotay ka dhamaa ma sha Allah ayay may noqotay ها wiilkaygiyo maxay u noqobaysaa iyo ilaa 25 sano xabsi ku jirtay ها waxa jira gabadh kale oo soo xasuustay oo hadda ka hor ii doontay alla maxaa la dhigi jiray waxay ahayd caasho intay ku dambaysay caasho way aroosto wala furo saddex nin maraysaa ki afraadna wadada ku soo jiraan ma sha Allah afar dhama ma sha Allah hadda wax kale ay soo dhacay aamino awdahe aamino taasi way dhimatay ilaahay u naxariisto allah iyadoo gaas wax ku karinaysa oo la qarax miskiinta way dhimatay allah ya xasuusiisa u dhimatay allah u naxariisto hadaba saasta dadka dhan waa dhinteen yaa haray gabar kastoo ii doonayd waa tagtay wiilkii aad maxaa ku dhacay waxaas way duqoobeen gabdho fireesha tiktok ka soo qaba hadda tiktok ku sameynaya ka dhil ay adi updates ka dhig waasa ku sheegay ma sha Allah igu filan hadda waa baxaa waxaan rabaa inaan aado isbitaalka si aan soo baaro kilideeda hadda shaqada diyaar in sheeg hadda waa iska baxaa hadda ma rabtaa biisamka ka dalba carshi biisa maxaa la dhahaa aad maxaa waxaas ka taqaanaa 25 sano xabsi soo laqaday wax ma ogid waxaa jira application la dhafaras oo cuntada ka soo qaadaya carshi hadda ku keenaa waa in carshi ku geeyo update ka dhigaa waa dhuntay waxaa la joogaa labada kulaatikood hadda wiilkayga carshi wax ma ka dalba mar kale nooga dhig hadda waa baxaa xabiibi insha Allah hooyo wax kale ku soo dhaca Faadumo ay doon jirtay hadda koor xagee ku dambaysay Faadumo waxay samaysay sidan kadibna waa la xiray xabsi loo imtixaamay madaxa loogu tuuray hooyo laakiin magaca xabsi hay maqashiin way hor maada iga dheeray magacaas magaca xabsi ka soo dhaxboodo miya maxaa u dhiciyay magacaas 25 sano xabsi ku jirtay hay wasi baxa hay wiilkaygiyo hodanay ka waran intay ku dambaysay yalla hodan yalla mu aqaaniye aga hodan kulaha alla hadda waxay noqotay faasimeynista caan maxay kaafale aad soo talid السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي عبد الحليم waxaan rabaa inay qabatid lambar كليدا نعم lambarku ugu horeeyay qabo okay waxa banaan oo imaanaysa 4 bilood kadib iyo 6 maalmood waliba 4 saac iyo 20 daqiiqo soo kuma qancin maxaa ka wada 4 bilood kadib hadda rabee waa bixi kartaa haddii aadan ku qancin number fiican ku qato markaas ku qanciyo waa fursad fiican ee ka faa'iideyso goolka dhil qalaas fursadda hal mar ku soo maray ogow okay waayahay lacag kala tuur number kala ku jira dhakhtarka kaliyaha rabtaa sax asaan rabaa number kala ku helay numberka xiga ee aan ku helo waa 8 bilood iyo 7 maalin xifdiya laakiin maalintaas meeqa saac maaha ni wax fahmataa waa ka helay walahi xasan daahiro saacada waa 9 saac ilaa 22 daqiiqo ma ku qabtaa iqa walaalkii Cabdixaliinow ma rabo kalka inaan dayaco fursadda goolka hore oo ku baas wallahi waxa raba bis inaa ku taabato goolka kadib aad dhalisid laakiin waa nasiib dadka badankood fursadaha ma ka faa'iideystaan haddii laag saara muuqaalka waa soo badi lahaa ma ogo ayka ani muuqaalada dhan waa saara like anigu waxa Cabdixaliin wana qana xalaashi xaraanta wanaag wax ma dhix xumaan fiicin 8 bilood kadib saacadu waa 9 saac iyo 20 daqiiqo soo ma waa saxan tahay okay السلام عليكم هلا عمران عليو انت جرت لكن وكو حناقسنها عمران لو اسبوع كمان ان شاء الله marka la sheeko ma doonana fadhiisi xaaladka انت leeyahay doctor daxliim wax moogid saacado kaliya liga adi xataa kilida marka number ii qabo ان شاء الله diyaar waa nin aana taas ku fududeen way fahmino waa gid dheelata idaayart dhakhtarka kaliya ku qabana biri ka waran bri aha shaqa maalada wax ma qabanoy hadartana hadartana hol ma haysa istaag marka عبدالله فادو بوسكي يوردي عمران دكتور كليا وجينا وما سنت حبيبي استك حبيبي انا عمران ninkan waa loo fududeynaa nin taajir ah waa lacag leh aad mid kale gulku dhali weys maxaa ku qaban karaa 8 bilood kadib as arkina kilida ku xanuunaysa miya wallahi kilida halis waaniyo ilaa ku caafiyo waana si dhaqsi leh dhakhtarku ugu geeya assalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawow waa maasantahay maxaa ku qabtaa ilaahay cumriga ha dheereeyay aniga waxaa rabaa inaan iibsado gurigeyga kadibna gadaal waxaa iga caddaaday inaan waraaqadii lumiye marka hadda waxaa ku imaa inaa ii samayso feelal cusub adeer horta aday sanadkee ka timid halkan waa maxkamad waraaqado la isku haysto kaliya xalisaa sanadkan wax walba online lagu habaysta ord guriga ku laabo maxaa ka aqaanahay aan 25 sano ka hor ka socdaa dhib ma lahan maadaama halkan imaatay waxaa kortaa dabaq labaad
waa xafiiska saddexaad oo dhanka midig kaa qabado insha allah lagu caawi doonaa إن شاء الله جزاك الله خير ilaa noloshaa kalkaciyo mudane korsoore ninkan waa ciqaabtiisna amarsiisaa waa commenti ku dhigle ma ahan markii ugu horeysa oo qofka commenti ka caayayo mudane garsoorow waxaan kaa codsan lahay ninkan inaa ciqaab adag marsiis halkaasaa ugu bax waxaan filaya inaa xalaashii xaaraanta kala taqaanid garsoore beena sheegaysaa aniga wax comment kama bixi tiktok iyo instagram isdejiya igaraal noqolaal aniga bilowga hore ma kasoo gaarin meesha maxaa ka jiro qaylada dhan maxaa waane waxyar dulqaadee sabar waxyar dulqaad xaajiyow qofkaas baraa bulshada caankata samaar kuweynaan la yidhaahdaa adduunku waa horumaray aan joognaa waxaa soo baxa dad baraha bulshada caanka ah anigoo maxamed bashiirin waa taageeraa waxaan ka mid ahay xerteeda anigan halkan waxaan u fadhiyaa inaan sawir la gala iyada waxayna dacwo ku soo oogtay dibigaas isodaya oo edabta lahayn commentiska ku jafe wuxuu u soo qoray followiskaada waa fig waa bugeysta waana saartay instagram waa beenlow laakiin ayadoo maskiin hawshaas ma taqaano followiskooda dhan waa dabiici xataa cabdixaliim cali oo caana followg waa siiyey ani followgas daqaana u qaybshaa ani follow uma dhin laasa dabiici mooye aamus qaadiga hadda waa xugmi rabaa sida inasa weyn allah noga dhigay aamiin dheh garsoore ninkan komitiga qaldan ay uga soo bixi waa inuu ciqaabtiisa maraa maxkamadda ninkan waxay ku xukmisay $3,000 oo uu sii doono gabadhan xaqeeda ku gafay weliba samaara fadhiga halkaasoo nagu xiran yahay guush annageen raacday inasa weyn maasanid array samaara kuweyna hega tegin sawiraan kula galaahay maanta dhan ku sugaayo yes waa ii gashay diyaar waay sawirka igaraal noqolaal maxaa laga wadaa caan laakiin gaamus daamta ku biirta toy kugula tugsane samaara ilaa hadda maa joogtaa haa adeer ilaa hadda waan joogaa horta wax kuweydiiye hooyada kuma soo raadaysa miya mana kaa walwalayse horta hooy inanta jooga miyay og tahayna iyada gartay aabbahaane ma ku soo raadinaya miya maya aabba safar u aaday ilaa aabbaha waa maqan yahay maadaama aabbaha uu maqan yahay oo safray ka waran haddaa ninkan lasii joogtid maxaa yeelay gurigeena wuxuu leeyahay qoolal badan haa laakiin waa qasab inaan baxo aniga waa ku suurahaas waa bixi kartaa soo ima dhihin aabbihii safar u aaday haa nin adduunya jooga maxaa arrinta ku laaban guriga maanta filin lagu duwaya miya ya ismaaciilow waxaa ku leeyahay hal shir kumali shirkadda iga hesho walaalka kaawina ahay maxaa sheer ugu lahaabaa shirkadda ilaahay ku sacliya ciyaal yuusan shaydaan isu keendirin aabba kan caasi waa hadalkaa wax ma ku falaayo allah aab maxaa ku dhacay hadda ismaaciilow abi wax gaaraada ku dila ogow alaabe maxaa ku dhacay alaabe maxaa ku dhacay dhaga absanaya bax fadhiiso liiban adina maxaa banaanka doonta banoon dheele ala waa i dilay alaaba maxaa tuu dhacay waa ka baxsatay maasha allah jilinkiina wuu fiican yahay dhalinyaro muuqaalkan waxaa soo dii doonaa ramadaanka waa la jarjara musig murugala hal saaraa youtube-ka abdixalim ala soo dhigaa yallaa dhalinyaro yallaa dhankeena position kala aadina oo kusoo dubina ma jira qof aan dharbaax filinka meeshaan ka cararo inta aniga dharbaxsho liigu dhufan ii qabta odagaa sii socdo guleed kaalintii maaw kaale soo dhowa guleed caliyo ilaahayna xifdiyo maasha allah meeshan aad bay u qurux badan tahay maxay isa wadi weysan meeshan bis maaha meel badan ka qurxoonaa jiro waxaa kamid a carshi sidoo kale adduunka dhan saas isku bedela maasha allah caafimaadku caada sheekh nooshuwa yariisa igala walqo waxaana kaa dhacay mahadsanid walaalkayo nambarkaa bay sii kartaa isdeji xishood la-aanta maxaa waaye maxaa ku dhaca waa abdixaliim isdeji aad fadhiis iska fadhiis waxay ku nool yihiin samin aan samankeena ahayn waa jiilka cusub marka adiga ah la yaay waxba dhaqankooda saas adiga fiir la yaay waxba qoori ininka ma jidin hoshiina wata shukaasigiina si wata naya walaal nambarkaa bay sii kartaa mistugtada aad siinaysaa hadal adi instagram ka fiican adaa mudan soo ka maha majajiliistii weynaay kaa daawo jirna waaba asigee
رأسي وطن الله نيكا تاجر جري يورن يا هلا ومرحبا حالة سكو تاجر اللي هذه ما يقصنا كنت تاجر متخنا أنت يورن وكفر حسن أنا ما أنت كل معان كينا إله أكبرك هلا أنا تاجر سيدتها عنو وافي عنها الحمد لله إذن كسيدتي في عن سوري أنا أدا يجعل أجرنا مسلسلات كاجا قصوين كاجا في المانتا حلقة سمو جرد جوجينا سيحجينا مركا يرن أدا داوجرنا وأنا يقصد سيجري وأنا حالي يقصد جينا بارك الله فيك adiga waxa kamid ah dadka ugu jeclaa markaa yaraa oo aan daawo jiray muuqaalada hore aad bay u qurux badnaayeen بارك الله فيك هذه كلها أو نفس ده لفدي له ومحا مالكس أنت اللي روجي كوب كبشين إن دع كسي أو دم ولا أنتوا ما شاء الله ما شاء الله أستاذ الله يحفظك اوكي هلا يقول قال هلا ترتيب ها قفل ولا قال ما حامشان كدع قرح ما دعي ما قرنا ولا مش كسعود وحي دعي انها سو ارك لا جرتو انا كان انتقني ها صح اي وليش يسوي قبلها كاله سور القلا ولالكي كال ايران نقو وا ايو نينكان اي dadka dhan ku shumumsan yihiin laakiin kan waa dijimajidka caanka ahay oo youtuberka ahay mataqaanid miyaan kan muxuu asiga caan ku yahay waa ninka ugu guri weyn caalamka waxa uu qoray youtube-kiisa kamtamajid maye ha wallay waa caan kaale ka faa'iido suur la galada maxaa uu boqosi dadka ma cunay badar la cunay wara dijimajidow odayaal ku cunaan kaale ورا دي جماجدو كالا اوداش حيوان سور غلان كالا تاجرش waxay waqti siiyo odash maadaama diin uu caawinaan iltagaa in odash xaaladina ka warama هلا يا دي جماجدو ku faraxsanaa dad noocan oo kale inay taageerashi kamid yihiin ma ku taageer weyne hatta guuled cali oo ku daawada laagnu ku saara youtube kaaga ha wallay waa sax ani aad baan u fiirsadaa marka badbaadka si dhaqsi ah u cunayst yam laakiin dii jimaajidu waxa sidee ku sameeysaa taasoo hibaale laakiin waxa soo talent u lastay buu isku dhawaniyo dhaclay kaltoorno laakiin adii fiiri wax inaad shaad ismal rabin oo filtration ka dhigto macnaa mar bariis mar baasto mar بريسا مر صراحة تقصد درتي أنا وكل فكرة دبهانتي موضوع عاس بس مركب بس كعنا تاجرش أدي بديه مركز داوشة بدن هلانو أنا هدا يوتيوبر وحايف عنا لا تقصد قاسكا ما هنا نفسي دي صماها وصرتقل إن هرمر يوتيوب كي كبت ماجد مستقبلنا بس بيسكو عنو حتى هل سحنا أول إنا عنو وحرجينا لو صحن كتورك المستقبل دبهانتي لجماجد وحلا تالنت هروسع الله محبرتي ولا ورنتي إن شاء الله مرة يوتيوب كبت ماجد وكالكعة إلى هكالكعي كالي صورة جماعة قالينا كالي صورة حسوسة قالينا صح كسنا خفر مدحس دوك هادغي او دداقين wax shaqara ayaa maqlin iyo dhaqaaq ayaa maqlin qabso wariyaa waa booliiska hadartaan لكن دوا عم يدلي سينه ها وكدلينا هذا بوليسك وعبيسد لكن نقصو هلو waxay maxkamaddu ku xukmisay raggan xaadirka ah oo weliba saddexdina u jeedaan oo ugu horeeyay kabtan maajid iyo abu cabdixaliim cali iyo sidoo kale guulad cali oo lagu xukumay xabsi 10 sano ah fadhiga halkaasuu nagu xiran yahay habsi alxamdulillah ونرعت يس يا سلام سلمنا من البلاء الحمد لله يسيهب أذني ونرعت هذا هاول نروش حبسة في عن يقدر بقيه محمد الله الحبسي وإني سؤالي هلا ما waxaa ka wadaa waxa halkan ugu soo celiyay horta marka koowaad aan ku sheegno waxa soo aragne gabar dhaheeso aabahey safar u aaday abu cabdallane
gurigiisa waa ka weynay halka xasan daahirne uusan ka faa'iidaysanin fursaddii uu helay yuusan ku dhaafin musalsalka la soo wada ramadaanka wuu faafi doonaa say sheegeen waxa uuna qabsan doonaa adduunka oo idil waxaa kugu bishaaraynayaa inay Samarakooyin ku guulaysatay qadiyadii maxkamaddana ay siisay $2,000 sidoo kalena waxaa ilow inaan kuu sheego inaan ku aragnay nin caan ah asagoo fadhiyo keligiis waa salaamnay laakiin ma aqaani aniga sababta u fadhiyo keligiis qof agtiisa joogta ma leh laakiin ugu dambeyntii waxaan sawir fiican la galnay nin caan ah oo lagu magacaabo DJ Majid walaalkaygiyo DJ Majid waa nin talent leh ilaahay kor ha u qaadashay anigiisa ma sha Allah fanaan waxa u rajeynaa inay calooshiisa 2 saxan ay deeqdo halkii maalin